waxtarka caafimaad oo laga helo geedkan. Caleentan waa caleen cajab ah, waxaa ka buuxa nafaqo aada ugu fiican caafimaadka maxaa yeelay waxaa ka buuxa antioxidant iyo fitamiino iyo mineral iyo fibaro ka caawinaya cudurrada khatarta inay ka hortagaan. Caleentan waa caleenta koostada loo yaqaano. Wadankeena qani ayuu ku yahay subxaanallah, waxaa ka buuxa nafaqo. Waxa koobaad oo ay waxtar ah oo ay leedahay waxaa ka mid ah waxay ka caawinaysaa inay hoos u dhigto dhiigga. Hadduu dadka dhiigkarkooda aada u sareeya aad tahay, dhiigkarka hoos ayay u dhigeen maxaa yeelay koostada qani ayay waxay ku tahay potassium, fibaro iyo nafaqo. Sidoo kaleeto waxay u fiican tahay dadka sokorta qaba maxaa yeelay sokorta kor uma qaado oo koostadu waa nicmo wadankeena qani ku yahay. War koostada ka faa'iideysta waxtarkeedana barta. Waxay ka caawinaysaa oo daaweysaaba caloosha fadhida oo caloosha ayay socodsiinay waayo koostada waxay qani ku tahay waxa loo yaqaano fibaro. Sidoo kale maqaarka qurux bay kaaga dhigaysaa, cabitaana ka sameysanaysayo haddaa rabtid maqaarkaaga qurux inuu noqdo, caloosha ku socoto adi dhan aa qurux noqotay, koostada maalin kasta cabitaan ka sameyso aada u dhaqaysaa. waxaa ku dari kartaa maanga, ku dari kartaa waxaa ku dari kartaa saytuun, waxaa any fruit oo haysatid hadday dhiig la-aan ku hayso waxaa ku siyaadin kartaa waxa loo yaqaan roomaanka. dhiigga ayuu kor usoo qaadaa oo dadka aneemiyada haysa aadaa la siiyaa. liin iyo koosta isku shiidan kartaa, maqaarkaaga qurux noqonaya oo marka maqaarkaaga qurux noqdo calooshu ku socoto maasha allah aad nafaqoodid. fitamiino aan lasoo koobi karin ayaa ku jira koostada. war koostada ma ogtihiin waxay hoos u dhigtaa heerarka kolestaroolka. dadka kolestaroolka qaba siiya u kariya saasoo kale iisi 5 daqiiqa u karsan kartaa. sidoo kale waxay kaa ilaalinaysaa aneemiyada ayay la dirirtaa maxaa yeelay waxaa qanibay waxay ku tahay bir subxaanallah. sidoo kale koostada timaha iyo maqaarkay u fiican tahay oo haddaa wax nafaqo la cuntid tintaada way qurxoonanaysaa, wejigaaga wuu dhalaalayaa maxaa yeelay koostada qani ayay waxay ku tahay iron baa ku jira. sidoo kale maqaarka waxay ka ilaalisaa qaleylka maxaa yeelay waxay qani ku tahay biyo. marka koostada shiido cunto ka sameyso si kasta u isticmaalo koosta gurigaaga ayay ka dhamaan. wadankeenana maasha allah qani uu ku yahay. koostada aaday waxay u leedahay waxtar aan lasoo koobi karin caafimaadka lafaha maxaa yeelay koostada qani ayay waxay ku tahay fitamiin K oo u fiican lafaha iyo maqaarka. waxay qani ku tahay calcium. sidoo kale aad iyo aad waxay ugu fiican tahay dadka miisaankooda yareynaya. koostada fibaraa ku jira, biyaa ku jira, ayada dhan waa nafaqo. miisaankana way kaa yareynaysaa, dhiig la-aanta way kaa ilaalinaysaa, maqaarka iyo tinta quruxay kaaga dhigay. koostada waxaa ku jira antioxidant aada u xoog badan oo kaa ilaalinaya xanuunada halista. ilaahay naguma rido inta qabtana ka caafimaadiya sida kansarka oo kaleeto. koostada hooyada xaamilka 95% aaday ugu wanaagsan tahay. caafimaadka aragay u fiicanta oo dadka aragooda daciifka yihiin koostada waa inay ku dadaalaan. koostada aada iyo aaday u wanaagsan tahay. koostada markaa karsanaysid waxay u baahan tahay kabsar caleen bas iyo xoogaa maraqa oo kabsar caleentan oo kale ku dari kartaa. koostada waa nicmo, ka faa'iideysta asxaabta. waxyeelaa koostadu ma leh, laakiin waxaa jira dadka oo kaliyaha ay uga jiraan dhagaxa oo kaleeto amlaaxda ku badan saa ogtiin koostada way iska yareynayaan. haddii aad qabtid xasaasiyad waa iska yareynaysaa. koostadu waa nicmo ilaahayna siiyey wadankeena qani ku ah subxaanallah. waxa wadankaaga qaniga ku yahay waa laga faa'iideystaa, waa nicmo min allah. fiiriya saasay midda saa u yaryar baa soo qaadanaysaa, cabitaanaa ka sameysanaysaa healthy ah. aada iyo aada uga faa'iideysta koostada. ku dadaala naturalka, iska ilaaliya waxyaabaha chemicalka. videos kaleeto insha allah intaan isku arkayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.